magaalada Casqalaan oo ah magaalo xeebeed ku taala dalka Falastiin oo u dhow marinka Gaza ee hadda muslimiin badan ay ku gumaadaan Yuhuud sanad kasta ayaa waxa ku noolaa Imaam Aadam ibnu Abi Ilyas oo ka mid ahaa culimada muslimiinta kuwa ugu cilmiga badan waqtigaas isla markaana si gaar ah ugu xeel dheeraa cilmiga xadiiska ama axaadiista laga soo wariyo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaana safar ugu soo anbabaxay inuu u yimaado oo uu soo booqdo caalimkan weyn imaamkii weynaa Maxamed bin Ismaaciil al-Bukhari. Imaam Bukhari waxa uu safarka ku soo galay ama uu ku soo safray doon dhinaca badda ah intii ay dhaxda ku soo jireen ee doonta ay soo saarnaayeen ayaa waxa doonta la socday rakaabkii nin ka mid ah oo tuug ah. ninkaas oo ka war helay in imaamka iyo xaaskiisu ay wataan 1,000 diinaar oo sahay ah oo ay rabaan in markaa ay ku tagaan Casqalaan danahooga ay ku dhameystaan kadibna ay safar kale ku sii galaan ilaa ay dib ugu noqonayaan deegaankii ay ka soo kicitimeen. ninkii tuuga ahaa wuu fikiray markii uu lacagtaas ogaaday ay haystaan kadib waxa uu afka furtay qaylo isagoo oo leh waxa iga maqan lacag qadarkeedu yahay 1,000 diinaar oo kiish ku jirta. markii la isku soo baxay dadkii doonta mas'uulka ka ahaa iyo la wada hadlay waxa la go'aamiyay in rakaabka doonta la baaro oo cidii laga helay lacagtaasi looga qaado loona aqoonsado tuug. arintaas ayaa la bilaabay waxaana rakaabkii doonta lagu bilaabay in la baaro alaabahooga ay sitaan iyo iyagaba. imaamka iyo xaaskiisu waxa ay dusha kala socdaan sheekada iyo arinta socota. xaaskii imaamku waxay ku tiri maxaa talo aan yeelnaa. imaamkii wuxuu yiri tuuga xun lacagtaas la siin maayo sidoo kalena rakaabkaasi igu tuhmi maayaan in aan lacagtaas anigu aan xaday oo tuug aan ahay oo sharafteedu halkaas dhaawac ka soo gaari maayo. xaaskiisi waxay weydiisay maxaa xal waad sameynaysaa. waxaan u yiri aniga ayaa xal sameynaya. lacagtii ayuu qaaday waxaana ku tuuray badda isagoo raba inuu sharaftiisa badbaadsado imaam al-Bukhari rahimahullah. markii la soo gaaray waqtigii la baari lahaa alaabtoodii iyo imaamkiiba waa la baaray waxna waa laga waayay. kadib xaaskiisa hala baarayo tuugu yiri. xaaskiina imaamku wuxuu yiri alloo yeero dumarka rakaabka ah ee doonta saaran iyaguna ha baaraan anaga wax shakiya ama toomada iskama qabno. sidii ayaa lacagtii looga waayay kadibna ay dadkii doonta mas'uulka ka ahaa ninkii ugu aqoonsadeen inuu been u sheegayay. markii doontii laga degay ayaa tuugii waxa uu sugay imaamkii iyo xaaskiisii kadibna wuxuu weydiiyay lacagtii halka uu ku qariyay imaamku. imaamkiina wuxuu ku yiri lacagtii badan ku tuuray tuugii how sababta maxaad saa u samaysay buu markaa tuugii weydiiyay. waxaan u yiri si aan sharafteeda u badbaadsado. tuugii ayaa yaabay oo yiri oo adigu yaa tahay markaad sharaftaada badbaadsanayso oo lacagtaada aad badda ku shubayso. xaaskiisii ayaa ku tiri waa imaam Maxamed bin Ismaaciil al-Bukhari. tuugii aad ayuu u yaabay isagoo khajilsan oo xishoonaya ayaa haddana waxa uu ku sii adkaystay yiri laakiin lacagtaadii waxaad u hadiyeysay badda waanu ka tagay. imaamku waxa uu la kulmay imaamkii kale ee uu socday imaam Aadam bin Abi Ilyas iyo xertiisii. halkii baana shaqadii iyo nidaamkii ay u socdeen ay hawsha ku guda galeen. laakiin mushkiladda soo baxday waxay noqotay sahay ma haystaan imaamka imaam Bukhari iyo xaaskiisu cuntana ma haystaan wixii yaraa ay wateen way ka dhamaatay. kadib baahi iyo xaalad xun ayaa soo wajahday. xaaskiisi waxay u soo jeedisay in uu culimada martida u yahay arintaas uu sheego oo la wadaago laakiin imaam Bukhari waa uu ka diiday isagoo leh mar rabo in loo fahmo ama loo arko
ama looga shakiyo in cilmigayga aan ka baayac mushtaraynayo laakiin ilaahay subxaanahu watacaala ayaan baryi doonaa fii jawfi lleyl waqtigaas habeenkaa saacadda dambe ama niska dambe habeenka ayaan ilaahay baryi doonaa sidii ayuu yeelay waa u ducaystay salaadii subax ayuu u baxay si uu usoo tukado salaadii subax markii uu ka soo baxay isagoo 2 habeen aan waxba cunin oo gaajaysan ayaa uu dhir masaajidka ku agtaalay caleemihii ka goostay isagoo raba inuu cuno oo caloosha ku buuxsado imaamku kadib waxa arkay mid ka mid ah xertii imaam aadan bin abi ilyaas dibadeetana si dhuumasho ayuu uga leexday waxaanu la wadaagay imaam aadan bin abi ilyaas arrintii uu arkay waxaanay ku tashadeen inay lacag siiyaan laakiin waxay ka xishoodeen inuu diidi doono arrintaasi oo uusan aqbali doonin ugu dambeynna waxay go'aan ku gaadheen in si qarsoodiya iyo nidaam uusan dareemin ay lacagtaas u siiyaan waxaanay salaadii cishaha intii aan la gaadhin isla habeenkii ay u dhigeen albaabka hortiisa isagoo oo raba in imaamku uu soo baxo salaadii cishaha markii uu albaabka furay ayaa wuxuu arkay lacagta hortaala waqti habeenimana ay tahay wuxuu gartay markaa deeq xagga ilaahay uga timid inay tahay iyo lacag loogu talagalay inay tahay waxaanay ahayd nidaam ay dadka waxgaradkii wax isku siiyaan kadib lacagtii ayaa uu eegay waxay noqotay 300 oo diinaar oo ugu filan inta ay magaalada joogaan inay sahay ka dhigtaan iyo safarkooga dambe wax yar kadib waxa albaabkii soo garaacay ninkii tuuga ahaa imaamkii marka uu suri fur walaa waa qofkii lacagta ku dhigay ayaa waxa uu ninkii tuuga ahaa soo taagay kiish ay ku jirto lacag imaamkii wuxuu weydiiyay maxay tahay wuxuu yiri waa 200 oo diinaar oo anigu aan ku keenay si wuxuun ay caymis kugu noqoto lacagtii 1000 diinaar ahayd ee sababteeda aad badda ugu tuurtay sidaas uu markaa ilaahay subxaanahu watacaala uu tuugina ku soo hadeeyay imaamkiina tuugii ku cafiyay imaamkiina ilaahay subxaanahu watacaala uu ugu gargaaray oo waxay heleen lacag dhan 500 oo diinaar oo si fiican ugu filan ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذه الدوام سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله صلى عليك وسلم المولى محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد إنك الهادي شفيع أمين الوحي مرشدنا محمد بادرنا بل أنت شمس بنورك ضاءت المضحى محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد تمت النعمة علينا بمولدك المكرم يا محمد زاويا قد كنت حقا بمكة قبل بعثك يا محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم محمد جاء جبريل الأمين إليك بها بقرآن محمد حاز حيث منا علا كذا العرفات والمسعى محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم محمد خير من شرفات به مر وكذا السفا جدلي محمد دعوة الرحمن جاد إليك بليلة الإسراء محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم محمد ذاك بعد البعث حقا بمعراج سموتها يا محمد
محمد راكب فوق البراق من البطر